shirkan waa kiisii labaad oo isugu yimaadeen wakiilla matalaya dalalka IGAD. Jabuuti ayuu ka qabsoomay kii kan ka horreeyay. waxaa looga hadlayaa isu socodka bulshooyinka dalalka IGAD oo isku mara hab dalku gal la'aan. weli lama gaarin heshiisyo, laakiin shirarkan waa wadatashiin lagu doonayay in heshiis lagu gaaro. Jamaaludiin Mustafa, safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya oo ku hadlayay magaca xogayaha guud ee IGAD, ayaa sheegay qodobada iyo xuquuqaadka heshiiskan uu sahli doono. heli doonaa kow in uu geli karo kana bixi karo dalalka xubnaha ka IGAD visa laan. labo in uu helo fursad uu helo shaqo uu helo. saddex in uu hooy helo. afar in loo diiwaangeliyo in uu yahay muwaadin citizen dalalka xubnaha ka IGAD. marka waxay tahay waa arrin weyn marka la fiiriyo loo fiiriyo dadkeena Soomaaliya iyo reer loo fiiriyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa shakhsiga ee dalalka IGAD waxay wax ka bedelaysaa dhaqanka xerooyinka dadka ku oodan qaxootiyada, isla markaana ay badinaysaa marka ruux loo ogolaado in uu dhex mushaaqo karo oo si free ah u dhex socon karo dalalka. waxay ka dhiganta ruuxaas waxaa waaye fursad shaqo iyo fursad noloshiisa wax kaga bedelo oo ka duwan kan xerada qaxootiga ku jiro ayuu helaya ka dhiganta. gaashaanle sare Maxamed Aadan Jimcaale Koofi, taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda, ayaan weydiinay walaaca laga qabi karo isu socodka bulshooyinka maadaama Soomaaliya ay deris la tahay bulshooyinka badan. walaacaas wuu jiraa, Soomaalidu way qabtaa run ahaantiina tirooyin dad oo ka badan way jiraan oo deris nala ah. Soomaalida marka laga fiiriyo waxa laga hadlayo waxa weeyaan sharciyada dalka u yaala ee gaarka uu leeyahay ayaa lagu dhaqaayaa, ma ahan wax iska wada furan. marka sharciyadaas ayaa la rabaa marka inay markastaba ay ilaaliyaan xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay, sidoo kale tan inay ilaaliyaan xuquuqda qofka martida ee soo degaya dalka inay ilaaliyaan. marka ma jiraan wax wada fasaxan, laakiin wax walba waxay ku hoos shaqaynayaan sharciyada dalka uu leeyahay. Cali Maxamed Cali oo loo yaqaan Cali bin Cali oo ah xogayaha joogtada ee wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya oo goobjoog u ahaa aasaaskii shirkii koowaad ee IGAD 32 sano ka hor, ayaa ka hadlayay faa'iidada Soomaaliya ugu jiri karta haddii heshiiskan la gaaro. waxaan qabnaa isu socodka hantida iyo dadka inay faa'iido badan u leedahay dalalka oo dhan. horumar badan baa ka dhalanaya. EU-da waa ognahay waxaa lagu maraa ID clear. annagu wax badan baa weli dhiman, laakiin dowladda Soomaaliya way soo dhaweynaysaa arrimaha noocan oo kale iyo horumar kastoo la sameeyo iyadoo la tixgelinayo shuruucda iyo siyaasadaha dal walba u gaara. heshiiskan ayay dad badan oo Soomaaliyeed u arkaan haddii uu dhaqan galo in faa'iido uu yeelan doono dadka Soomaaliyeed oo qaarkood hadda dalalkan IGAD ee heshiiska la galayo ay qaxooti ku yihiin. laakiin dhinaca kale waxaa muuqan karaysa in dadka Soomaaliyeed oo tirahaan aad u yar marka loo eego dadka ku nool wadamada deriska la Soomaaliya ay khatar uga imaan karto. Dinaasir Maxamed, Telefishinka Universal, magaalada Muqdisho.